Bismillaahi Raxmaani Raxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah guriga hadda aan ku dhex jirno bannaankiisana waa idin tusinay waa guri dhismayaashii hore ah magaalada dhexdeeda ku yaalla meel maasha allah ku yaalla gurigan wuxuu isugu jiraa qayb sar ah iyo qayb jiingado ah marka ku soo dhowaada waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo gurigan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdishone waxa uu uga sii yaalaa degmada Dharkeenley waa soona Madiina degmada Dharkeenley waxa uu uga sii yaalaa xaafadda macmacaanka marka ka tagto suuqa weyn oo dhankaas iyo ka soo socotid korontada iyo suuqa weyn oo laamiga ku socotid macmacaankana u sii socotid intaadan macmacaanka gaarin ayaa waxaa ka leexanaysaa wadada loo yaqaano Big Baraf wadada waxaa u leexanaysaa dhankaaga bidix ama dhanka koonfureed marka laamiga ka leexatid wadada koowaad labaad saddexaad afaraad tan shanaad ayuu gurigani saaran yahay marka laamiga saas ugama foga waana dhabarka dambe ee ceelka Cali Cumar loo yaqaano sidoo kale waa uu ka sukeeyaa barxadda caanka ah ee loo yaqaano Washkax guriga ayaa laamiga ka soo xiga inaad si fiican u fahanteen ayaa rajeynayaa walaalayaal haddii aad hore usii aadidna waxaa wadadaas ay ku tagtaa xaafadda Kaawagoday walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka gurigan iibka ah waxa uu ku fadhiyaa cabir dhan 20/10 ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood sida u yaqaanaan waa boos finti barfinti ahay oo la kala gooyay nus ka mid ah booskaas ayaa iib ah laakiin waa cabir weyn nuskan wuxuu u dhigmaa boos oo meelaha qaar ah ama uu ka weyn yahaba wejiga hore waxa uu yahay 10 mitir dhirirkana waxa uu yahay 20 mitir walaalayaal gurigani waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 5 qol 2 qol waa dhagax waa hadda kuwa u jeedaan labadan irid 3 qol oo kalena waa jiingad marka isku darka guud qolalka gurigan uu ka kooban yahay waa 5 qol albaabkaas ayuu leeyahay dabcan suuliyaashii iyo jikadii barxaddaas yartaana wuu leeyahay hadda arkayseen meeshaan yarta ah albaabka agtiisa ah marka soo dhowaada walaalayaal waa guri dhammaystiran hal famil oo ballaaran si fiican ugu filan haddaba waa la degan yahay haddii aan ka hadlo walaalayaal jidadka oo gurigani leeyahay gurigani waa hal jidle waxaa hormarta waddo weyn halkaas waddo ayuu haystaa haddii aan ka hadlo walaalayaal waddada dhanka oo ka xigo ama dhanka oo u jeeda gurigani waxaa u jeedaa jihada galbeed marka waa dhul hal jidle ah ama guri hal jidle ah isla markaasina galbeed ujeed ah
haddii aan ka hadlo walaalayaal dhanka dukumentiga uu leeyahay gurigani waa dukumentiyadii hore ee xilligii Maxamed Siyaad Barre. warqadaha dhan way u dhan yihiin rasiid, sabarloog iyo dhammaan warqadaha kale ee loo baahan yahay. walaalayaal dukumentiga Siyaad Barraha ama loo yaqaano waa noocyada loogu jecel yahay magaalada hore oo dhan ama magaalada intii dhisneed 1990 ka hor ama la cabiray. waa dukumentiyadaas wax isqabqabsi ah ma laha, wax walwal ah ma laha, waa dukumenti asal ah. nootaaya lamida jecesha ayaa lagu geenayaa si lagaaga hubiyo oo loo xaqiijiyo sax ahaanshaha dukumentiga. walaalayaal dhul waxaa laga gataa dukumenti shirkadda Lisri sida haddii aan nahayna waxaan mar walba ku dadaalnaa dhulka dukumentigooda ay saxsan yihiin oo ay dhammaystiran yihiin. haddii aan walaalayaal ugu dambeyntii ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta gurigani lagu rabo, waxaa lagu rabaa walaalayaal lacag dhan $65,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis. wixii macquul ah waa laga faragelinayaa. heshiis ayaa ka furan, waxaa la yidhaahdaa beec meeshuu ka bilowdo kuma dhammaado. runtii 65,000 oo ku helaysid dhul magaalada dhexdeeda ah, meel istiraatiiji ku yaallo, haddana dhisan, waa fursad. qiimaha xaafadda haddii la fiiriyana waa u qalmaa. waxaa lagu leeyahay laamiga kama dheera, macmacaanka waa ku dhow yahay haddana oo meel ganacsi ah. suuqa weyn kama dheera, kaawa goday oo iyadana suuq kale ah, waddo weyn oo laami u dhigantana leh iyadana kama dheera. marka waa meel istiraatiiji ah, lacagtaas waa u qalan ayaa dhihi karnaa. ha laga faa'iideysto, la soo dhawaado walaalayaal shirkadda Lisri Estate. haddii aan nahay waxaa diyaar u nahay inaan idin soo tusino. haddii aad ku qanacdaan nootaaya alla midda jeceshahay aan kuu geyno insha Allah. walaalayaal haddii ay riidaan dhul ku leedahay Soona Madiina iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir 20ka degmaba nala soo xiriir. waa lagu biic geynayaa haddii aad rabtid in lagu gado. haddii aad dhul uga baahan tahana sidoo kale nala soo xiriir, waa lagu fududeynaa insha Allah. si hufan oo qancin ay ku jirto ayaa lagu shaqeynayaa. walaalayaal haddii aan ka hadlo ugu dambeyntii waxyaabaha uu gurigani ka anfici karo, walaalayaal gurigan wuxuu ka anfici karaa deegaan. waa bartamaha Madiino, waa meel dhinac walbo waxaa la deegaan fiican oo ka xigo magaalada dhexdeeda ah, oo familada inay ku noolaadaan ku fiican, oo xaafadaha deegaan ku fiican, buuqooda uu yar yahay. meel oo jaam ah oo ma aha. sidoo kale wuxuu ka anfici karaa walaalayaal gurigan mustaqbal ahaan, maxaa yeelay magaalada waa ay ballaaranaysaa, waa ay sii fidaysaa. xaafado badan oo xilligan dambe ama 10 sano gudaheed aad u dhismay oo waxaa jira xaafadan ku dhegan. marka mar walba oo magaalada sii ballaarato ama ay sii horumartane waa meelaha u sharaxan inay dhismaan. xaafadan weliba dabaqyada iyo ay kusoo badanayo. marka waa fursad walaalayaal ay ka faa'iideysta. dhankaasna waa idinka anfici karaa maalgashiga ama bararsiga. lacagtiisana waa macquul, waa aragtaan. sidoo kale wuxuu idinka anfici karaa kira ahaan inaad inta dhisatid ama sida hadda uu yahay aad ku kireysatid. waa guri hadda la degan yahay ee lacag kaa soo gasho. si kooban wuxuu ka anfici karaa deegaan, maalgashi iyo kiraba. walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Lisri Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelino insha Allah tacaala. waa mahadsantihiin mar kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.